السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلتي وعنا وناكسن ومركلة يمالين قروح بدن waxaan rajeynayaa caafimaad ku toostay alxamdulilah saqal caafimaad baan ku toostay maalin qurux badan baan qaadanaya maanta vlog baan noo duubi doonaa waxaan ka cashantii barkii hadda saacadu 6 subaxnimo taagan tahay vlogan maanta ma kala hadhayna dabcan waynu israacina labadeenu laakiin please kanalka subscribe saar si subscribe teenu kor u kacdo videogan dad badan u gaadho like saar intaas waa codsi kadibna vlogga maanta bal si qurux badan oo degan u daawo waynu israacaynaa waa vlog kooban 8 daqiiqo 9 daqiiqo ku kooban oo all the life maalinta dhan waxaan qabaneed ku arkaysaa insha Allah san ilaahay ka rajeynayo ma kala hadhayno waxa weey hadda waan bixi doonaa saas baynu iskula soconaa boom boom saas waxaan isku ognahay subscribe inaad kanalka saarto like saarto taas waa shaqadayda adiga waa shaqadaad qabanayso ana shaqadayda iida teeda kale dad badan oo asxaabta kamid ah ayaa dabcan su'aalo soo weydiiyay active ma ahayn hadda insha Allah dib active soo noqon doona su'aalihiin dhamaan iniga jawaabi doona salaamu alaykum let's go wabaxayna imiga okay halkan bay maalintan ku bilaamaysa dabcan buugtan baan habaynayaa kadib boorsada baan ku ridayaa dabcan buugtii aan maalintaasi u lahaa buugaas waan jecelahay waa buuga taariikhan ka akhriyo Victor Hugo okay dhac boorsadaan soo qaatay halkani baashaasi markaan stresskii waxa si haya maaragtay baan qaataa kadib sharaabkiga cabitaankayga soo qaatay because cabitaan badan baan u baahnay maalin dhan baan maqnaanay waan soo baxay ugu dambeyntii gurigeyga waa iska check gareeyay albaabka dabcan hadduu cagaar noqdo ma xidhna hadduu casaan noqdona ay uu xidhay albaabka waa check gareeyay waa furo electroniga waa soo baxay daarada ma soo dhex maray kadib halkani waa qolkay gurigeyga dhexdiisa ay leedkaas waan jecelahay because wuxuu ku shaqeeyaa translatorka qofka macnaha dhaqdhaqaaqa qofka ku shaqeeyaa halka mamurada isku fiirinaya labiskayga tijaabiya asxaabtayda waan baxayaa baan leeyahay daldal baan wada ay dibadda xilliga waa madow waa tan jawiga Yurub habeenkii saacad waa 7 subaxnimo iyo 14 daqiiqo qoraal yar baan soo dhigay sad aragtay man malaynaya xaafaduhu waa madow dabcan xaafadu say u madow tahay kadib waan soo baxay baarkinka xaafadan eegay gaariyaashii dhan ma joogaan waa la kala dareeray xaafada qof kasta shaqadiisa uu ka lahay hadda qaboobihii weeye waxa way cid meelahan ma joogto halka maan soo dhex maraa subaxii waan nolosha Yurub saxda dhanka kale kamarda ku qabtay gaadasha dhowr qof aan shaqo tagin xaafadooda jooga dhamaan gaadashan xaafadooda yaal dadka xaafada iskala meeshan barakin maaha oo dadka Soomaaliya joogan garanay qofka Yurub jooga already uu garanaya dabcan halka maan soo maray buubalis waxa la dhahaa qashinka la gurida guryaha hortooda halka maan wax kasta soo maray ay jawiga qurux maanta ishqiyaas cirkan kamarda ku qabtay waa luuqa suuqdadii xaafadaha Soomaaliya kale kadib halkan gaadiyaalshii baa jooga tareenkii baa maraya kadib tareenku wadada loo xidhaa because calaamadaha casanka waxay sheegayaan dangerous dhulku inuu yahay isku marin baa lagu leeyahay gudbin kadib waan soo gaadhay calaamada sareedka waa casaan baashaas wajidka xidhanta marka tareenku meesha uu marayo ugu dambeyn waxaan soo gaadhay meeshan tareenka raacay tareenkan waa tareenka idhaafaya ee hadhow aan qaadan doono soo laabanaya hal akhid baa dhama hal boosteeja hadhay kadib halkan maan kamarda isku fiirinayaa journalkan essential baa la dhahaa subaxii halkan xabad journalan kala soo baxaa akhbaarta cusub kadib waa soo qaataa waxaan tijaabiyaa ay meeting maanta maxaa ka cusub cimilada information maxaa ka cusub halkan waxa ku qoran Outri armée la Ukrainiis iyo wax noocaasa inta boqolonshe journalka dalkayga Faransiiska lagu qoraa wadanka Luxembourg laga hadlayo Faransiis waan soo baxay tareenkii baa ka soo maraya uu xidhantay wadadu kadib tareenkii bay midii CVL tareenka yarana qan xaafadada ka dhex shaqeeya 6 daqiiqan la sii soconay 7 daqiiqo wax noocaasa waan soo koray dad badan ma saarna tareenka subaxa qaar uu buuxa maanta laftirkeeda dad baa saaran laakiin dad badan ma saarna okay kursi baan raadsaday halkan wax kasta ku arkaysa okay halkan ma waxa weey journalkii wali ma dhameystirin akhrintiisii inaan journalkii waxoogaa soo qaato weeyii journalka akhriyo deedna fiiriyo asxaabtana waxa weey gamarda ugu qabto nolosha Yurub saxda ah bilaa filter bilaa waxba waa tan asxaabta timaha bay iga dhagan tahay because dadka ay soo eegay khajilaadii xasaasiga bibinaya inkastoo Yurub la soo eegin inta badan okay halka waxa soo gaadhay meeshii taraamka labaad ka qaadanay sababta caasimada wax ka dhigtaa taraamada sugay dadkan oo taraam bay sugayaan waa mashquul Betenburg waa meeshan la dhahaa waxa tareenka hore ka degay cirka shimbira ay xilliga duulay qurux jawiga macaan weey xilligan kadibna waan yaabana tareenkaaga maxaa ku dhacay uu yartahay tareenkayga imid Luxembourg wuxuu tagay caasimada centraalka Luxembourg ayuu tagayaa waa halkan iskuulka ka dhigto kadib waxa dhacday waan soo dhaqaaqay tareenka soo fuulay gabadh glassmeedkiga isku dhex aragnay waan ilowina vlog inii duubay goorta ma arkay asxaabtaydan vlog u duubay maanta sorry halkan waa gaaqi Luxembourg ama meesha postashada tareenka Luxembourg kadib wiishta man qaatay darsin ba ila saaran ninkan muxuu duubay bay talo isleeyihiin youtuber caana ay waan soo degnay kadib waxaan ka soo baxnaa dad badan waa la wada yaacaya qof kasta boorso xambaarsan yahay cabitaankii buugtay hawlihii shaqada dhan ba ugu jirta Yurub iyo dadka maxaa boorso kala haysta garbihii khalaas bay taagiyeen
kadib waan soo baxay halkan waa centraalka magaalada marar badan falka ku aragteen tramkan ka qaadanaya waxaas ka shaqeeya tram baa la dhahaa xaafadu ka dhex shaqeeya magaalada dhexdeeda gobolada ma tagay kaasi okay taranka ma gobolada tagay basaska dadku way wada yaacayaan qof kasta stress baa hay shaqadii uu ka daasan tahay saacad baa lagu wada xisaabtamaya Yurub baa meesha la dhahaa qiyaas kadib oday waa kan timay ka dhagan tahay maanta muraadar buu hagaajisanaya weyna ma xaway indhaha iyo wajiga u saaran waan soo baxay ugu dambeyntii waxaan leeyahay asxaabta nolosha Yurub saxda balka dhaadhiciyo maalin dhameystir tarankayga maxaa ka hadhay uu daahsan yahay hadda kaas uu sii baxaya kasoo galay aniga soo raacaya hal daqiiqo ka hadhan xagaasi lycée de Benfoy baan dhigtay iskuul dhaho lycée waa dugsiga sare macnaheega Faransiis ahaan marka la eegayo kadib waan yaabanahay jawiga laakiin macaan jawigan iska daawanaya sideeda iskuulka galayay waan yaabanahay oh my god maxaa ku dhacay tareenkaagii what the happy kama saaytay waxaa soo dhan ku hadlay okay alafan dhamaadka tareenkayga way imaaday waan soo galay tareenkayga halka murada hagaajistay waan soo fadhiistay taraamka maan qaatay taraamka Luxembourg gaadiidku waa lacag la'aan baa lagu raacaa dawladan khayr Allah si ma dhaxadna gaalo way khayr kuma garnay mu kuma dhacay adiga dawladda ma sha Allah taraamada wax kasta gaadiidka free wadanka waaye sababta wadanka ugu dakhliga badan halka maan soo maray بريش عانه ومجالس تراك لوكسمبورغ يالا وصو دول مراي وف وان كدغاي اسكولك wax yar baan u jiraa kadib tareenka ka asxaabta ugu qabal waxaas tram baa la dhahaa xaafadu ka dhex shaqeeya ardayda xilligan soo fuusha halkan liisiga ama dugsiga sare baa wax yar u jira halka ma adaygu ku soo dhacay muraad waxa hagaajistay kadib waxaan sugaya akhadka buskan sugaya because gaariga lama jari karo iskuulkigan soo gaaray waa ka lycée Benfoy classkan soo galay logistics ya ma dhigta barashada asxaabta logistics waxa la dhigtaa fakaltiga Soomaaliya badan kama jiraan malaynayaa halkaas iska fadhiistay saaxiibkay muraad weyn baalka ay daba taagan isagana safka u dameysan fadhina maanta because falak baa duubana safka koowaad baan jecelahay halka ma muraadayda xeeranahay dadka falogyada duuba ma aragtay barankiyada aamus ay oran jireen anigana aamusan taaganahay asxaabta hayguha hadlin okay macalinku yaabay yahay maanta wuxuu leeyahay ninkan muxuu iska hordhigay kamarada laakiin macalinku ma ogeyn meesha kamarada taalo ninkan falag u duubay rag Soomaaliya way iyo gabdho Soomaaliyeed waan soo baxay xilli brigeer 9kii waxa soo kala 45 cadceeda jirta حق أملي طبعا عندك وشيء إن دوبه مالها قار صوت عجل أندر أي شيء سكولة قار دكتا وبريمري سكندري سكول ده جنال كان أصحابتي دي بقى سايسوتا فرنسيسي فرح هسكتشوف يعني كم سايتي تنشوفني والله في خمس تب بروتكسيون أجودو يستخدم ديفيسيل لك سما امتحان برجالنا بوحلا ده بروتكسيون يا بروفيسيون ما هل كم واحد ويصاحب ده ويا بيه هنا أنا كم يوتيوبر يقرنا يجوا وقتنا يوتيوبر هاي شو وسقاتين كدبنا جلاس كان الله بتاعي حل بريجي وينابا قاعدة وصوب حي وساعات لو بيترك شيء فرتن والله صاحب وندالنا هاي maanta ma yaragtaan saan u malaynaysa hadda break baan doonaya baan dhahay sababtoo ah halka maan ku soo laabtay mar kale taraamkaasaan qaadan doonaa sababtan taraamka u qaadanayna maqaaxida restaurantiga iskuulka maanta waxa lagu sameeyay doofaar iyo waxaasi iyo cuntooyin kale oo aan doonaynin oo laakiin iska normal ah markaas waa inaan dukaanka dalhiis tago weeye kadib taraankayga baan soo qaatay taraama raadinaya keeba qaatada baxay labadan taraan is ag taagan mid baa hal daqiiqo wax ka dhiman tahay kadib waan soo galay albaabka kaas la iska taabtaa wuf furmay albaabkii si toosa kadibna gudaha soo galay maxaa ka taqaanaad waxaas oo dhan kadib gudahan soo galay dabcan markaan gudaha soo galay boss ma raadsaday halkan baan fadhiistay dal baan wadaa Soomaali baan igu la hadlay subscribe kanalka Isaara wata nolosha saxda Yurub waa la rafaadaa waa la baxaa subaxii habeenkii guriga loo soo laabtaa okay kadibna bridge-ka saakan soo maray dib ugu soo laabtaa kaasi aad arkaysaan inay muuqato meelaha taraamka laga raaco weeyi ama maxaa taqaanaan meesha tareenada la dhigo okay parking-kooga kadibna Luxembourg waa soo gaaray saaka xilligan qoraxda soo baxday saacad 12 dadku xilli break bay xilligan soo baxeen qaar safarro soo baxayaan Paris from Germany Belgium balaya meelaha loo kala soo socdaa kadib tareenku xaafadu ka dhex shaqeynaya wali still kadib halka yarbaan lugay ay falaad Luxembourg baan ka arko in soo duubay gibigeedaba waxa weeye halka man daldalmay asxaabta YouTube-ka fulaga iga dhisa waxa weeye comment-ida fiican soo qora okay soo subscribe saar kanalkan oo ma xasuusinta badan kadib halka man soo baxay dalhiis baan soo gaaray Brosi baa dukaan kala dhahaa ama dalhiis dadka Yurub jooga way garanayaan kadibna wuxuu ku yaalaa santarka magaalada wax yar buu jiraa santarka magaalada 7 daqiiqo soo socda waan soo galay ay khudaar balkan taala laakiin aniga khudaarta ma cuno waxaan soo qaatay chicken bone waxa la dhaho dhac waan soo labada midha chicken waan soo qaatay oo daqiiq la dhex geliyay waxoogaa chicken iyo xabad faanta caloosha fiican tahay faantaduna mataqaana soo kookaha sorry ka faanta ma kooka yan soo qaatay waxa caloosha fiican tahay kadibna tareenkii dib u soo raacay waqtiga iga dhacay because waqti badan ma hayo waa ka tagay tareenkii markaan ka digay kadib mid baa wuxuu ku baxay xuf halka ma soo fadhiistay asxaabta waxaan leeyahay waan briganaya meela briganaysan wax meela cunaysan sababtoo ah restaurantiga ma ka dan tago oo waxa way wax ku dhex cunaysid ilaahdo waqtigan luus gareynay wax yar baa ay dhiman asxaabta brig waa ma inii rajeynayay inaad caafimaadkooda brigataan okay falkan sii wadi doonaa kadib soo laabtay galaaskii baan imid xiisadii orod ku soo galay wax kale ma haleelayn xagan waxa yaala abalkaas waan caabaa inta badan
asaga suuxan soo qaatay kadib halkan ma soo fadhiistay macallinku yaabayahay wuxuu leeyahay ninka dadka buuqsto tusay noocma bugaasi fikta quugo baa la dhahaa waa taariikhanka akhriyo okay waxyaabo badan ma ku qoran macallinka su'aal weydiiyay wariyaa abigu ku dhahay wax ma diyaarisay ha halkan jaajarkayga because telefoonku iga tamiya ma ogtahay maanta dhan fologan ku duubayaa ilaa habeenka guriga u laabanaya muraadayda halkaas boorsada ay taalaa xaggaas waxay ku yaala sawirada qacmaha lagu sameeyey faantadan iska soo qaatay in badan ma wax dhiganayay saddexdii galabnimo saacadu ay tahay kadib faantadaydaas iska dhex xabay galaaska cabitaanka waxaas waa loo ogol yahay in wax lagu dhex cunan baa la diidan yahay kadib way dhamaatay afartii galabnimo saacadu maraysaa farahan inaygu sheegayaa hadda saacadu afartii halka maan telefonkayga suuliga la soo galay iskuulkan ka bixi doonaa asxaabta ila socda hadda meel kale aan tegaya dabcan nolosha saxda Yurub waatan qofna inuu xaqiiqda inaga qarinin saasa Yurub loo rafaadaa guriga lama dhex jiifo sad la socota iskuulkan ka soo dhex baxay faham daminash maanta ma joogo xilligan hablaha meesha nadaafada ayaa inta badan jooga because classkayga ugu dambeeya kan iskaaliye baan soo qaatay catabada marka dagay iskaaliye Francis way okay catabada kadib taqasimentash baan joogay ama dabaqa saddexaad waan ka soo degay halka ma timayn ugu hagaajisanaya tima waan xiray waraadayga bidaraha soo gali karabta hablo iga soo gaadha hadii kale okay kadib wax dhacday waan soo baxay iskuulka markaan toos uga soo baxay asxaabta maanta maalin adag bay ahayd runtii waxyaabo badan baan soo dhigtay wax waan soo faa'iiday waan daalanahay labiskana waxoogaa iga tijaabiya baan idin leeyahay ay waraa odayga labiska waa isku fiican yihiin mararka qaar okay laakiin waa dhal culimo odaygu kadib cadceedaas dhacaysa waa aragtaan hadda anaga cadceeda shanta way noo dhacdaa markay gaadho dhibtana taas way because qaboobihii oo bilaabmay xilliyada qaarna waxay noo dhici jirtay sagaalka fiidnimo hadda 17 galabnimo way wax yar laadahay kadib waan soo socday xuf tareenkan soo qaatay kadib waxaan imday meeshan waa meesha laga eega saacadaha taraamyada u baxayaan waxaan imday boostashada tareenka laga raacay kadib waxaan doonay inaan boostashada tareenka tareen qaato oo meeshan socda aan tuso kadib catabadaha ma soo qaatay marka catabadahan soo qaato xuf tareen ka yareen qama raacaya kaas halka ka baxayna oo kii Paris tagay okay asxaabta la socdo Paris kaas taga metroway baa la dhahaa uu dheeraya kadib tareenkayga wuxuu baxayaa 16:25 buu baxayaa ma 45 digrish meeladan u socdaa waa meeshan brevet ka dhigto tareenkii waan soo galay oh my god waan daalanahay qof saaka 7 subaxnimo soo baxay dadna nimkan brevet u sii socda xilligan cabitaan biyaha marka saboorsan ku qaata biyuhu caafimaadku fiican waliba kaliya xoog fiican saddex wax oo kala duwan ma cabitaan wata ilaahayo waan aragtaa ya amaralle kadib buugan man akhriyay buugan man bilaabay history waaqayga intaasaan kasii faa'iideeyay inaan buugtan akhriyo oo sababta buugta iskuulka lagu dhigta maahan laakiin waa buug sheekooyin iyo ku qoran yihiin waxyaabo novels lasoo diiwaangeliyey kadib waxaan akhriyaa magaalada qaybta sare flogigii koowaad berigii ku aragteen halkan ma soo maray yuuf tareenku ila soo socday aakhirkii waxaan soo gaadhay meeshan shantii baan soo gaadhay tareenkii baan ka degay kadibna dad badan bay halkaas daba socdo xisleeyo ninkan maanta duubaya asxaab waxa uu gudbinaya waxaan leeyahay asxaabta igeer earphone-adayda maanta mooto sir hagaajinaya ishqiyaasay luuqama maalin kasta soo maraa markaan meesha ka soo baxo taraamka laga raaco luuqan markaan soo maro san luuqan u soo socdo wuuf gaariyaal badan halkaas baasbaasaya sababta inteer waan ku nastaa waxaan isleeyahay waqti fiican baa stress ma hayo sababta 5 daqiiqo ka hor baan soo gaarayaa 5:15 baan bilaabaya ama 17:15 weliba halkan iga xiga labiskayga tijaabi kabaha ay maanta labisku waa ka hadhaysan yahay su'aalaha softiga waxa fiican mataqaana maanta dhan maqnaanaysid halka webiga yarna iska jecelahay kamarda inagu qabtay kadib waan yaabanahay waxaan isleeyahay 5 daqiiqo ku hadhay asxaabta falka u sii wadaalanahay asxaabay wata noloshaasi marka nolosha Luxembourg san weeye saasa maanta dhan loo soo ciyaarkaas iskuul bay ka soo dareereen waa ka waan soo gaaray INL meekhshi baan soo gaaray xakan waa brevetkayga aan ku dhigto koorsooyin kadibna waan soo galay markaan u soo galay asxaabta suuliga orod ku tagay maanta dhan waxa weey waan socday somaha cadar baan u baahanahay intaan galaas gelin because kabla qurux badan ma ila dhigtaa nadaafad waa nusfu min al-iimaan asxaabta iska kaftamaya waa isruusheeyay cadarkayga iska hagaaji raqabada wajiga soo fadhaqo soft iska soo masax galaaska orod ku soo gal sababta galaas xaq uma lihi halkan kookahayga iyaala koorsadii waxaan dhiganayay boorsadii buugtii halkaas fadhadhac muraayadii kadib markii koorsadu dhamaatay galaaska faaruq noqday baan quraasida soo yar tuubay sababta xaq uma lihi galaaska dhexdiisa tuubo okay mamnuuc waayo inta saligu qato habeen bay noqotay saacad waa 9:10 baan ka soo baxay ama 7 fiidnimo kadibna waxaan doonayaa meesha baska laga raaco wax yar bay ii jirtaa 4 daqiiqo waan soo lugeeyay wuuf meeshii baska nimiday gabadh waxaan sugayaa aan asxaab glass meednahay oo waxa weey ii timid iyaduna igu dhahday sababtayna tareenka qaatan doon tareenka dheer ee bas ku soo daha marka asxaabta waxaan leeyahay nolosha Yurubsan way subaxii baa la baxaa habeenkii xilligaasi waa saacad 7 habeenimo gurigeyga Allahu aclam 9 tagay baan u malaynayo kadib asxaabta bal ila socda in dabcan maanta maalinta badan bay haydo run ahaantii waxyaabo badan wad funogan ka dhex faa'iideen meeshan ka soo baxay meeshaas weeye oo waa meeshan koorsada ku qaata brevetkayga halkana kaniisad baa wax iga garaacaysa inkar ma ku dhacdo baskayga imiday gabadha waxaan ku dhahay xagga dambe gamar asxaabta vlog baa u duubayay okay
markii dambe halkaa dambe baska ka kortay baska cid badan ma saarno aniga iyada iyo waxa saaran qof kale malaha dhan oo saan u malaynayo telefonkeyga isku mashquulin xagga dambe saaran tahay kamarda la indhiguma qabanayo kadib halkaas baska dhan waa cidlo weeyey safar baan soo galay habeenkii oo dhan safar baan kusoo jiray kadib saan baski usoo saarnaa waxaan soo gaadhay meeshan oo la dhaho etwelka waxa ku yaala garoonka Cristiano Ronaldo nagaga badiyay halkaa tooska ka muuqata kadibna tramkaygiiba imiday because safar kale inaan galo weeyey oon tago meeshii laga raacay tramka weyn waxaan tram baa la dhahaa kalena tram way kala duwan yihiin kadibna adiga halkan isku eegaya kamarada inaan tramkan qaato weeyey mar kale kadib waxaa qasabay in tareenka dhexdiisa soo galo tareenkii baan soo galay kadibna halkan waxaan soo gaadhay meel Luxembourg oo vlog aad ku aragteen vlogyadeeda kamid ah meesha ma soo gaadhay iyaduna Plasitwell baa la dhahaa kadibna waan kasoo baxay gaaqi Luxembourg saakaan joogay subaxii habeen bay noqotay saacadu waa 8 habeenimo ay saacadu noqotay istafurlah 7:40 bay maraysaa meelahaasi kadibna tareen waxaan soo dhex maray gaaqi tareenkayga goorma baxayaa oh my god wuxuu baxayaa saacada markay tahay 22 daqiiqo 8 daqiiqo tareenka wii ma raacayaa kadib markaan tareenka raacaan tareen kale aan sii qaadanaya waan bedelanaya okay kadib saacadu waa 20 daqiiqo Luxembourg waxay ku fiican tahay gaadiidka dhan waa free waayo iska koraysaa le waa ka degaysaa le gobol to gobol to meel caafimaadku waa free waa la isku arkay ma garanaysaa halkaasi deeto wax dhacday tramkan soo koray asxaabta vlog baan inii duubay waan daalanahay laakiin ilaahay amarkii halkan afka haysta earphone soo qaatay xilliga wixii ka dambeysay waxaan update iska dhigaa wararkii Soomaaliland dhageystaa okay kadib wax dhacday tramkaygii waa kan wax yar baa hadhay buu leeyahay information kan dhageysanaya waxa soo baxaya moorka oh my god halka saaka subaxii baan maray ugu dambeyntii waa anigana asxaabta ma aragtaan meesha waa madow saakayada madow waa maray caawinada madow aan soo maray hadda saacada tusaya waa 8:45 meelahaasi baan in leeyahay asxaabta waan daalanahay run ahaantii vloggan vlog qurux badan buu ahaa dabcan noloshan inaad wax ka fahantaan baan doonayay dadku ay niga sheekeeyaan markasta Yurub waa lagu raaxaystaa xilligaas la baxaa tada kala single ahay guriga markaan tago cunta ay sugaysa salaadihiiba ay sugayaan tukanin oo maanta dhan salaad ma tukanin sababta waxay dhaafay salaado badan subaxii ma sii tukaday laakiin tii kale salaadihii dhan hadan tukanay markaan guriga imaado iska bixinaya ilaahay amarkiisa sababtoo waxa weeye mataqaanaa meeltan ku tukada ma haynin kadib waa ka madowga ma soo dhex maray xaafada waa la soo wada buuxsamay waxa moodaa baarkinka gaadhiyaasha waxa moodaa meesha inuu baarkinka furay dadka dhan shaqooyinka soo wada laabtay xilligan madbaxa lagu wada jira waxba la wada karinaya 9 habeenimo qofka 7 uu iska seexanay markuu 10 waa la daalay bari shaqadana loo kala hayaa maanta waa khamiis weeye postiga maxaa maanta cusub ay soo dhacay waraaqada halkan baa la isku soo tiraa posti baa la dhahaa dawladda hore Soomaaliya way lahaan jirtay laakiin imika dawladda ma le kadib guriga hor imaaday okay check in samee albaabkaaga yaraa wuf dibadda eeg guriga waa kan waa shawdiga maxaa laga jira magacyada qofka telefoonka laga soo call garay wax noocaas ah ku jira kadibna ilaahay amarkiisa albaabkii waan iska furay oh my god laydka dib hore ka sii shidmay waan soo socday kadibna gudahan toos u soo galay halka maamka duriyamaya waxaan leeyahay asxaabay waad aragtaan xilligan saaga baxay hadda saacadu 9 habeenimo weey wax yar laadahay gurigeygii waan imaaday ugu dambeyn alxamdulillah ilaahay baa mahad ilaahay inaad ku shukr naqdo markasta ilaahay baa maxaydan lagu shukr naqa saacadan tusaya saacadu waxaan leeyahay waa 8:45 rubuc bay laadahay meelahaasi ama 10 daqiiqo bay laadahay ka soo qaad okay asxaabta salaadahan tukan doonaa kadib vlogga in hadhow soo gabagabayn doonaa laydkii baa ii shidmay kan guriga soo galay because waan sii bartay subaxii electronic Europe qaalibu noqday xagaas telefoonka guriga laga soo garaaco baalka gadaasheeda ku yaala xagana timetable-kiga igu yaala jadwalkiga ma aragtay sportiga markaan sameeyay jadwalkiga kala meel kale ku qoray sportiga markaan sameeyay maalmaha weekendiga waxaasi waxa ku xasuusiya motivation ma sameeyay telefoonka iga dambeeyana waa telefoonka markuu qof dibadda iga soo garaacayo guriga okay asxaabta saladan tukanaya dabcan maanta maalin qurux badan bay ahayd wad raacdeen waxbaad ila soo dhigateen waxbaad ila soo cabteen waa ila soo birigateen waa ila soo laabateen imkana insha Allah saladahan wada tukanaynaa waxa weeye guriga kala habeynaya marka saladaha tukado farash baan iska dhigayaa vlogga ma dhawaan soo xidhay asaasan isku ognahay asxaabta dabcan saasa inoo balanaan inagu leeyahay marka YouTube-ka subscribe sar please salaadin soo tukaday alxamdulillah kitaabka xusn muslim baa la dhahaa ducooyin ku qoran ma sha Allah markaste update kaasna laptopkayga jika ayaa ku dabcan habeenkii waan awoodi waayay inaan vlogga soo xidho maadaama aan saa'id u daalanaa alxamdulillah ala kulli xaal salaadaan iska tukaday hawlo badan baa iyaalo hawlihii baan iska qabtay imtixaan baan diyaarinay soo kale imtixaankii baan diyaariyey marka dabcan maxay hadanay way ii suurtageli weyday ifan mataqaanaa in aan habeenkaa vlogga soo xidho marka haddaan vlogga saa soo xidhay markaan videoga edit garaynayay insha Allah horta nolosha Yurub dabcan loo soo cararayo kanalka subscribe de even maxay hadanay like de share sida
waa mahadsantahay wixii fikirkaagan hoos usoo qor insha allah active noqon doonaa maalmaha soo socda dhammaantiin waxaan nii rajeynaya insha allah maalin qurux badan maanta inagu soo dhamaatay salaamullahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaynoo balanaa inaan 5,000 gaadhna caawa hadduu rabbi aqoon marka fulagan inuu soo gaadho fideogan aan ka dareemo dabcan in taageerayaal aan haysto dabcan aan la qiyaasi karin farxadooda iyo wanaagooga intaan video lamida ku kulmi doono waa aniga Abdiraxmaan Doolara